runtii waxaan u arkay markay isbedel yimaado kullay moral jabba imanaya saraakiil badan oo aad looga jeclaa gobolka oo maanta ka tagtay baa jirta saraakiil laga necbaayo iska joogaana way jiraan waxaan leenahay taliya ciidanka fariintaan u diraya nin baa gabiyo wuxuu ku gabiyey oo uu yidhi haddii aad beerato quulle iyo jeerin qare iyo saytuun kuuma baxayaan waa xaqiiqo weeyaan saraakiil badan oo laga jeceliyay baa gobolka laga qaaday oo hawlkar ku ahayd oo dadku jeclaa oo shaqadooduna ay ahayd mid qaranka iyo gobolkaba u dana waxaan leenahay qiimayntu ha noqoto qofku wuxuu yahay qiimayntu yaanay noqon qabiil yaanay noqonin baanu leenahay qiimayntu yaanay noqon hebel yaanay noqonin ciidanku wuu ka duwan yahay waxyaabaha kale waa inay qiimayntiisu ahaataa mid dalkaan u hadlayaa markaa fariintaan u dirayaa waxa weeye gabaygaa lugooyaan kaga tegaya anugu gabaygaa lugooyo oo cigaal ku tilmaamayey ayaan kaga tegayaa waa inuu qiimaynta qofka ciidankii noqdaa wuu ka duwan yahay siyaasad wuu ka duwan yahay wax la isku riixo wuu ka duwan yahay runtii qof boos loo doono wuu ka duwan yahay ciidanku wuu ka duwan yahay waana ka nabadgelyadeena haya aynu ku seexano waanaanu la shaqaynayna taliyaha cusub waxaan leeyahay waa hadalkan badan maanta kumaan tala geline laakiin wax badan aanu dareemaynaa baa runtii jira wax badan aanu dareemayno ayaa jira shicibkaanu la dareenahay ciidankaanu la dareenahay waxaanu dareemaynaa baa runtii jira taas iyadaana fariintaasi ciddii leh ayaan halkaasi u marinayaa waa in ciidanku runtii isku tashadaa waa inuu wada shaqayn buuxdaa ka dhaxeeyaan waxa kale iyaduna jirtay maalmahan baa aanu ka shaqaynaynay wada shaqayn tii ciidanka booliiska iyo caafimaadka oo had iyo jeer ale marka kiisasku dhacaan aan cabdi aad iyo aad ugu mahadnaqayaa qoraalladii aanu u soo gudbinay ee saldhigyada yaallay waa inay halkoodii ka sii socdaan rifeertada marka la soo qaato dhaawac muujin wuxuunbaa laga qaadan karayaa dhakhtarka weyn barasaab wuxuu u xil saaranyey hay-adaha dowladda inuu xidhiidhiyo iyo siyaasaddii dowladdu inay gobolka ka socoto siyaasaddii dowladda ee ahayd isku xidhka ayaanu anagu dowladda u matelaa taa iyada ah halkii baan ka sii wadi doonaa taliyaha qaybta cusubna waxaan rajaynayaa inuu nagala shaqayn doono iyo saraakiisha kale ee naloo soo bedelayba waxaan leeyahay waxa weeyaan gobolkani runtii waxaad moodaa inuu gobollada ugu hawsha badan leeyahay weliba hadda markuu roobka bilaabmay waa 9 dhimashada ka dhacday gobolkani ilaahay wuu nagu guuleeyey intii hore kuwii horena sidaasaa loogu guulaysan jiray idinkana wixii dhaca lama odhanayo maxay u dhaceen wixii dhaca inaynu degdeg wax uga qabanno ayaa loo baahan yahay taasina waa ciidanku kalsoonida uu ku qabo hogaankooda ayuunbay ku iman kartaa waa soo dhaweynayaa saraakiisha badan ee la soo bedelay saraakiisha kale ee laga bedelay gobolkana waan sii nabadgeliyeynaynaa